Somalidu kaleen aragtay ka baxday kuftay kacday jabtay oo kabatay madaxweyne xasan sheekh maxamuud hoolkan aan caawa joogno waa markii labaad aan ka qayb galo isagoo u sharxay madaxweynaha Soomaaliyeed doorashada ka horeysay waxaan la ku dhageystay barnaamijkiisii iyo qorshihiisa 6 tiir ah caawan waxaan ku dhageysanay mar labaad wixii uu ka qabtay 6 tiir iyo waxa qabiyo uga ah sidoo kale madaxweynuhu wuxuu qeexay oo ballanqaad cad ka muujiyay oo farwa weyn ku qoray waxyaalaha uu hiigsanay inuu qabto aad baan ula dhacsanahay aad baan ugu kalsoonahay inuu ilaa hadda yahay murashaxa kaliya ee noo sheegay waxa uu qabtay iyo waxa uu qaban doono oo yahay hogaamiye aanu soo tijaabinay bulshada soo tijaabisay marka aad aragto qof qorshihiisana daba kacaya ama fulinaya wuxuu ahay waxa aad u wanaagsan in inta loogu daro uu dhameystiro iyo kuwa cusub oo la yimid intaba madaxweynaha waxaan leenahay wuxuu ku guuleystay nabadeynta gobolada dib u dhiska maamul goboleedyada hirgelinta doorashada qaran maamuladii hore ay hore u hirgelin kari waayeen iyo dhameystirka qabyada ee dastuurka wuxuu qabtay madaxweynaha qolo badan oo qabtay wuxuu sameeyay safaarada aan hore u jirin sida safaaradda Turkiga Imaaraadka Carabta isbitaalaad badan buu furay aeroportkii terminalka oo furay ormado hay'adaha cadaaladda iyo dib u dhiskii kaabayaasha dhaqaalaha kor loo qaaday 6 tiir baa la sameeyay madaxweynaha mar kale in loogu naqaan rajaynaynaa waana soo dhaweynaynaa kala geeyay inka saarila waa kan nabad qoriyo waa kan isku kana waa kan